بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمت معاه صدح يتبنك بشا جون سنة كاللبكن لباتن يشن أو كوبعغن تضبية تبنك بشا دو الحجة سنة كن أفر بقول أفرتن يليح تاريخ دي هجريد كسو دوادا مركله إيا برامجكي حولشada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamid ah waa duqeymo culus oo Israa'iil ay ku qaaday wadanka Iiraan waxa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira in la beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan telefishin laga leeyahay wadanka Iiraan ayaa waxa uu sheegayaa dadka la beegsaday inuu ku jiro taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan General Hussein Salami iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee wadanka Iiraan iyo waliba xubnaha u qaabilsana Iiraan barnaamijyada nuclear gaar ahaan arrimaha sayniska waxa kale oo lagu soo waramayaa in la beegsaday xarumo kamid ah xarumihii nuclearka ee wadankaasi Iiraan waxa kale oo la beegsaday xarumihii diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale gantaalo jawiguna waa sidan waxaan kaloo idiin soo gudbinaynaa Iiraan oo lagaga dhawaaqay xaalad degdeg ah isla markaasna wacad ku martay in jawaab degdeg ah ay bixin doonto Israa'iil waxa lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah dadkana waxa lagu wargeliyay in ay ka agdhawaadaan goobaha gabaadka loo galo gantaalada Netanyahu iyo xubnihii kale golaha wasiirada ayaa la sheegayaa dhulka hoostiisa inay ku sugan yihiin halkaasna dagaalka Netanyahu ka soo hagayo hawada Israa'iil waa la xiray garoonka diyaaradaha Ben Gurion waa la xiray dhammaan diyaaradihii imaan lahaa Israa'iil ayaa loo waciyay dhanka jasiiradda Khubrus waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladan Mareykanku ma ka qayb qaatay duulanka lagu qaaday Iiraan xaaladan waxay ka macno tahay dagaal buuxa gobolka bariga dhexe inuu galay wararkii ugu dambeeyay ee amurahan ayaan idin soo gudbinaynaa soo dhawaada markala daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saakay barnaamijka gebi ahaanba waxaynu ku eegaynaa xaaladan cusub ee gobolka bariga dhexe ka taagan weerarkan culus ee Israa'iil ay qaaday magaalada Tehran ee caasimadda iyo gobollo kale oo ka mid ah wadanka Iiraan ayaa duqeyn ba'an Israa'iil ay ku qaaday duqeyntan xagga cirka ayaa waxa la sheegayaa in lagu beegsaday xarumo kala duwan oo ah xarumaha xasaasiga gaar ahaan xarumaha nuclearka taliska ciidamada ilaalada kacaanka wadanka Iiraan guryo ay degan yihiin saraakiil sarsare sidoo kale waxa la beegsaday xarumaha sayniska iyo nuclearka intaana idin soo gudbin wararka ugu dambeeya ee la xiriira saraakiisha ilaa hadda la xaqiijiyay in la dilay waxaanu ka hormaraynaa xaaladan sida ay ku bilaabatay daqiiqada ka hor war soo dhacay wuxuu sheegayaa duqeyn kale in imika Israa'iil ay qaaday iyadoo wararkuna ay sheegayaan in duqeyntan markan ay ka baxsan tahay magaalada Tehran oo la duqeynayo deegaano kale oo ku yaala wadanka Iiraan waxaana warku taasi ku daraya in xaalad degdeg ah lagu dhawaaqay haddaba aynu eegno macluumaadka iyo wararka soo dhacaya wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee Tasniim ee laga leeyahay wadanka Iiraan in dadka la dilay ama saraakiisha la dilay uu kamid yahay taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka ee wadanka Iiraan General Hussein Salami oo wararkii ugu dambeeyay aan idin soo gudbinaynay isagoo jeedinaya hanjabaado culus waxa lagu soo waramayaa in arintan la xaqiijiyay telefishinka Iiraan ayaa waxa uu tabinayaa in ay jiraan warar kale oo sheegaya in xubno kale oo muhiim ah oo kamid ah ciidamada iyo qaybaha kale ee sayniska gaar ahaan arrimaha nuclearka in la beegsaday waxa kamid ah Mohammed Mahdi Tarnaji oo ahaa madaxweynihii jaamacadda Azad Islamic University iyo waliba sidoo kale Major General Ghulam Ali oo kamid ahaa taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka wadanka Iiraan gaar ahaan qaybta lagu magacaabo Khatam al-Anbiya oo wararku ay sheegayaan in isagana la beegsaday laakiin lama xaqiijin geeridooda waxa kale oo soo baxaya warar kale oo sheegaya in mas'uuliyiin kale oo kamid ahaa qaybaha kala duwan sayniska iyo ciidamada in la beegsaday wararkan waxay sheegayaan
sida telefishinka Iran laga leeyahay uu tabinayo in la beegsaday goobo ay degan yihiin dad rayid ah waxaana ka mid ah goobahaasi goobo ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda telefishinka kanaal 13 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegayaa in weerarkan lagu beegsaday xubno muhiim ah oo ka tirsan taliska ciidamada ilaalada kacaanka Iran xubnaha Iran u qaabilsan arrimaha sayniska iyo waliba arrimaha nuclearka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo goordhow ka hadlay ayaa waxa uu sheegay weerarkan inuu yahay mid taariikhda Israa'iil wasidalka u dhigaya baal dahaba ka galaya wuxuu sheegay Iran in ay diyaarinayso inay soo saarto ilaa iyo 10,000 oo gantaalaha nooca blastiga waxa uu sheegay weerarka inuusan ahayn kii ugu dambeeyay waxa kale oo soo baxay warar sheegaya in warshada nuclearka ee lagu magacaabo Natanz lagu soo waramayo in la beegsaday haddaba aynu idin tusno sawirada ugu dambeeya ee muujinaya in xaaladdu sida ahayd markii weeraradu ay bilowdeen goobtan waa mid ka mid ah goobaha dadka rayidka ay degan yihiin ee la beegsaday ee magaalada Tehran ee caasimadda waddankaasi Iran intaanan idin soo gudbin warar kale oo hadda soo dhacay waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba la xiray hawada waddankaasi Iran waxaa kale oo hadda soo dhacay war sheegaya in xarumaha nuclearka ee la beegsaday ay ka mid tahay warshad ku taal deegaanka la yiraahdo Karmashar waxaana weerarkaasi uu ahaa kii labaad oo Israa'iil ay qaado madaxda Israa'iil ciidanka ayaa waxay sheegayaan in weeraradan aysan noqon doonin kuwii ugu dambeeyay laakiin ay noqon doonaan weerar xiriir ah oo joogto ah iyadoo wararku intaas ay ku darayaan in dhammaanba goobaha la beegsaday ahaayeen goobo muhiim u ah sida hadalka loo dhigay amniga iyo jiritaanka Israa'iil qatarna ku ahaa intaan u imaan Mareykanka oo war soo saaray dhanka Israa'iil war hadda naga soo gaaraya gaar ahaan telefishinka kanaal 12 wuxuu timinaya dhammaanba saraakiishii sarsare ee Israa'iil gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidamada in markaasi loo qaaday goob ammaan ah iyadoo laga cabsi qabo Iran inay jawaab culus ay ka bixiso arrintaasi dhanka Mareykanka markaynu eegno xogayaha amuuraha dibadda Marco Rubio ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aysan Israa'iil weerarkaasi ku taageerin oo Mareykanku uusan ka qayb qaadan waxa uu sheegay innaba haba yaraatee inaysan xitaa wax luga ku yeelan weerarkaasi waxa kale oo tilmaamay in ay rumaysan yihiin Israa'iil inay qaaday isdifaac nafteeda isdifaacayso waxa kale oo la sheegaya garoonka diyaaradaha ee Imam Khomeini ee ku yaala magaalada Tehran in gabi ahaanba la xiray sidoo kale wararka soo dhacaya waxa ka mid ah in garoonka qaybo ka mid ah la beegsaday dhanka Israa'iil waxa la sheegayaa gabi ahaanba diyaaradihii imaan lahaa garoonka diyaaradaha Ben Gurion in la joojiyay hawada Israa'iil gabi ahaanba waa la xiray wararku waxay kale intaasi ku darayaan in qaar ka mid ah wadamada khaliijka ayagoo ay qaadeen tilaabooyin la xiriira xagga ammaanka gaar ahaan hawada waddanka Ciraaq ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la xiray gabi ahaanba hawadiisa isla markaasna loo ogolayn diyaaraduhu inay halkaasi ka gudbaan afayeen u hadlay militariga Israa'iil oo wargeyska Israa'iil Today uu soo xiganayo waxa uu sheegay weerarkan inuu ahaa mid ka hortag ah oo lagu hortagayay qatar ka timaada Iran sida hadalka loo dhigay waxaana la sheegay in la beegsaday dhowr iyo 10 goobood oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin xarumaha militariga isla markaana sidoo kale waxa la sheegay in la beegsaday saraakiishii ugu sarreysay ciidamada ilaalada kacaanka ee waddanka Iran madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la sheegayaa kulan degdeg ah inuu la leeyahay qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta sarsare ee ciidamada iyadoo la qiimeynayo xaaladan waxa ay ku dhabaan karto iyo waxa xigi kara sida uu tabinayo telefishinka CNN ee laga leeyahay waddankaasi Iran telefishinka laga leeyahay waddankaasi Mareykanka Iran waxa la sheegayaa in qarka ay u saarnayd inay samaysato hub nuclear sida uu ku doodayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo waxa uu leeyahay ilaa iyo 10 ilaa 15 madax oo nuclear ayay Iran qarka u saarnayd in ay samaysato waxaana uu leeyahay wayna ka hortagnay war hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in uu bad qabo taliyihii guud ee ciidamada guud ee waddankaasi Iran Major General Mohammed Bakhari laakiin waxa la sheegayaa in la beegsaday Hussein Salami laakiin waxa la sheegayaa ninka hadda sawirkiisa halkaan idin kaga muuqdo Major General Mohammed Bakhari in uu markaasi uu bad qabo isla markaasna hadda uu ku sugan yahay qolalka howlgalka dagaalka
iiraan ayaa ilaa hadda waxaa wararku ay sheegayaan inaysan tilaabo qaadin laakiin waxaa wararku intaasi ay ku darayaan in la filayo jawaab inay bixiso iiraan sida ay tibinayaan wakaaladaha wararka ee waddankaasi iiraan ilaa hadda lama xaqiijin mas-uuliyiin kale oo la dilay marka laga tago mas-uuliyiintaasi aynu carabaabnay uu ugu weyn yahay generaal xuseen salaami taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka ee waddanka iiraan xaaladan ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladan ay noqon karto mid gobolka bariga dhexe gelisa dagaal jawaabta iiraan ayaana ilaa hadda loo dhegtaagaya war ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in dadka lagu wargeliyey inay ka agdhowaadaan goobaha gabaadka loo galo gantaalada iyadoo wararkuna ay sheegayaan in markaasi suurtagal ay tahay iiraan inay si degdega ku bixiso jawaab inay bixiso war hadda uu soo tuuray telefishinka laga leeyahay waddanka iiraan ayaa waxa uu sheegayaa in sidoo kale la dilay Faryaduun Cabbaasi iyo Maxamed Mahdi Tahrnaanji oo ahaa mas-uuliyiin sarsare oo iiraan u qaabilsan nuclearka gaar ahaan arrimaha sayniska sida telefishinka waddankaasi iiraan laga leeyahay haatan uu soo tabinayo xaaladan ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in sida Israa'iil ay ku doodayso suurtagal ay tahay weeraradan inay qaado oo maalmo ay socon karaan sida gordhawito uu sheegay taliyaha ciidanka Israa'iil Iyaal Zamir oo la hadlayay warbaahinta Israa'iil xaaladda ayaa waxay u muuqataa mid aad iyo aad u qasan dhanka warbaahinta Israa'iil gaar ahaan wargeyska The Jerusalem Post ayaa waxa uu sheegayaa dhowr iyo 10 diyaaradood inay ka qayb qaateen howlgalkan waxaana loo badinayaa in hawada waddanka Suuriya ay isticmaaleen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil sababtuna waxay tahay baa leeyahay waddanka Syria nidaamkiisa hawada oo gebi ahaanba aan jirin isla markaasna Israa'iil ay hore u burburisay waxaan leeyahay fursad ayay u arkaysay Israa'iil weerarkan ay qaado sababtoo waxaa jira qorshe imika socda oo la doonayo Turkiga in lagu wareejiyo hawada waddankaasi Suuriya taa ayaa waxa leeyahay Israa'iil waxay u arkaysay fursad inay ka faa'iideysan karto arrintan waxa leeyahay waxa suurtagal ah iiraan inay bixiso jawaab aad u adag sababtoo ah xaalad dagaalka waxa bedelaya baa leeyahay goobaha la beegsaday waxa ku jiray goobo dad rayid ay degan yihiin ilaa haddana wararku wax intaasi ay ku darayaan in markaa dhowr qof oo rayid ay geeriyoodeen warbaahinta iiraan waxay sheegaysaa haweenaya caruur inay ka mid yihiin dadka geeriyooday xaaladdu waxay u muuqataa mid ka sii dari karta sida wararku ay sheegayaan Israa'iil war hadda laga soo xigtay gaar ahaan raadiyaha militariga Israa'iil wuxuu sheegayaa saacada gudahood in ay suurtagal tahay iiraan inay jawaab bixiso isla markaasna gantaallo ay ku weerarto gudaha Israa'iil waxaa suurtagal ah baa leeyahay boqolaal gantaallo nooca balastiga iyo diyaaradaha daroonka saacada gudahood in iiraan ay ku soo weerartay Israa'iil waxa kaloo hadda soo dhacay war sheegaya Israa'iil in ay diyaarinayso weerar kale oo ay ku qaado waddankaasi iiraan sida ay tabinayso warbaahinta gudaha ee Israa'iil xaaladuna waxay u muuqataa mid faraha ka bixi karta ilaa hadda waxa la sheegayaa saldhigyada Mareykanka dhaqaaqaya inay ka socdaan la xiriira difaac lama oga iiraan inay ku koobnaan doonto jawaabteeda inay duqayso Israa'iil iyo inay beegsato saldhigyada Mareykanka sidii horey iiraan ay wacd ugu martay inay beegsanayso xarumaha militariga ee Mareykanka haddii la soo weeraro lama oga qasaaraha intuu gaarsiisan yahay gaar ahaan warshada la yiraahdo Natanz oo kamid ah warshadaha ugu muhiimsan iiraan ee nuclearka arrintan waxaa laga cabsi qabaa in ay Israa'iil ugu tala gashay inay ka hortagto sida iiraan ay soo samaysan lahayn hubka nuclearka waxaa kaloo leeyahay kulamadii la filayay in maalinta axadda ay yeeshaan wufuudda iiraan iyo Mareykanka ee laga wada hadlay arrimaha nuclearka inaysan dhici doonin ayaa loo badinayaa telefishinka iiraan war uu baahiyey oo la xiriira muuqaalada aynu idin tusno mid ka mid ah muuqaaladii ugu dambeeyay ee warbaahinta iiraan ay soo bandhigaysa gaar ahaan telefishinka Press TV وهاجاك لما شيء قبضة أي تهي قبضة قرحية ولا جم مقلي لكن براه برشيدة وح لو ريتشنيا إنه حرون تنتهي متكم إذا حرمها جنتالدا أي يعلن ودكاسي إيران
nidaamyada difaaca Iran ayaa waxa la leeyahay waxay isku dayeen inay ka hortagaan weerarkan laakiin sida muuqata Israa'iil waxay isticmaashay qalab aad iyo aad u casri ah sida wararku ay sheegayaan maxaa yeelay goobaha la beegsaday waa goobo xasaasiya gaar ahaan macluumaadkan Israa'iil ay haysan waxa la leeyahay waa macluumaad dhanka sirdoonka gaar ahaan dadka la beegsaday Israa'iil waxa la leeyahay waxay ku tala gashay Iran dhanka ciidankan inay ka burburiso iyo dhanka nuclearka gaar ahaan saynisyahanada sababtoo ah laba saynisyahan oo kamid ah saynisyahanada ugu muhiimsana ayaa lagu dilay weerarkaas iyo taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran General Hussein Salami macluumaadkan wuxuu ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii aan la idmo inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka haddaba si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo